wafdi sare oo hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ay weheliyaan gudoomiyaasha maxkamadaha deegaanada dalka iyo labada ismaamul ee dalka ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka degmada Shabeelle ee gobolka Faafan. Wafdiga ayaa waxa duleedka degmada Shabeelle ku soo dhaweeyay afhayeenka golaha xildhibaanada deegaanka Marwo Ayaan Cabdi, gudoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida mudane Cali Baaruud Sheekh Axmed, mas'uuliyiinta hay'adaha cadaaladda iyo saraakiisha booliska deegaanka. Ugu horreyn mas'uuliyiinta ayaa markay soo gaareen duleedka degmada Shabeelle waxay soo kormeereen habsami socodka mashruuca dalxiiska Shabeelle oo gabagaba maraya, sidoo kalena waxay soo kormeereen warshadda xiriirka baabuurta ee Suez iyo sidoo kale waaxda nasashada ay ku yaalaan garoonka kubadda cagta iyo sidoo kale garoonka kubadda kolayga ee Garaadwiilwaal Park ee magaalada Jigjiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay mashruuca marinada magaalada Jigjiga. Mas'uuliyiinta ayaa deegaanka u yimid ka qaybgalka daafurka iyo xarigtarka waaxda aalada casriga oo kala ah aalada fogaan aragga ee video conferencega, nidaamka maareynta geedi socodka dacwadaha ee court case management system iyo sidoo kale nidaamka ballamaha macaamiisha, taasoo qofka u sahli karto waqtiga uu ballanta ku leeyahay maxkamadda guud inuu ku yimaado. Sidoo kale waaxdani ayaa waxay bulshada u sahli doonaan inay adeegii garsoor ee ay u aadi jireen maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay si sahlan uga heli karaan deegaanka Soomaalida iyagoona safar iyo masaafo dheer aan gelin. Inta kadibna gudoomiyaha maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Tedros Mehrad iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda guud ee deegaanka mudane Cali Baaruud Sheekh Axmed ayaana si rasmi ah u daafuray waaxda aalada casriga ee lagu soo kordhiyay maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida. Haddaba xarigtarkaas kadibna waxa warbaahinta deegaanka faahfaahin dheeraad ah ka siinaya waaxdan iyo ahmiyadda ay bulshada u leedahay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida mudane Cabdikariin Axmed. ujeedka ugu muhiimsan ee dawladda deegaankeena gaar ahaan magaalada Jigjiga u soo booqday waxay ahayd adeegyadan inaga dambeeyay saddexdan adeeg oo aan maxkamadda dawladda deegaankeena ku soo kordhinay anagoo la kaashanayna maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Sida aynu wada ogsoonahay dal ahaan iyo deegaan ahaanba waxaynu u soconaa ka dawlad ahaan adeega aynu macaamiisheena gaarsiino si heerka ay taagan tahay si ka fudud oo ay ku gaari kartaba inaynu hiigsanino dal ahaan iyo deegaan ahaanba waa qorshaha weyn ee inoo yaala, gaar ahaan habka imika electronicska ama digitalizationka ee loo yaqaano. Marka adeegyadan aan maanta xarga ka jirnay anagoo wada dhanay gudoomiyaasha deegaamada dalka iyo hogaaminaya deegaanka oo hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxa ugu horeeyay adeega loo yaqaano video conference macnaheedu waxa weeyaan ruuxu isagoo Jigjiga jooga go'aanka maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga fadhigeedu yahay ay gaadho haddii uu damco inuu ka qaato racfaan oo Addis Ababa u tago inta uu halkan ka qaato isagoo aan Addis Ababa Jigjiga jooga ayuu garsoorayaashii Addis Ababa fadhiyay cabashadiisa u gudbisan doonaa, waxa uu leeyahay dhan halka ka sheegan doonaa isagoo Jigjiga jooga iyaguna ay Addis Ababa joogaan. Sidoo kale mustaqbalkan waxaan ku rajaynaynaa in adeegan oo kale aanu ka sameeyno Jigjiga deegaankeena waan ka sameeynaa imika iyo gobolladeena kale si gobollada macaamiishayada joogta maxkamadaha gobolladeena yaala ama ka jiraba adeega ay siiyaan ama go'aamada ay gaaraan haddii aanay ku qancin si maxkamadda guud garsoorka jooga cabasho kasta oo ay qabanayaan ugu soo gudbistaan. iyadana taana waan ku tala jirnaa haddii alla ka dhigo xilli aan fogeyn inaan arrimaha bilowna ayaan ku tala jirnaa. Marka la isku geegeeyo ama deegaankeenaba aan ka samayno ama deegaankeena iyo federaalka aan isku xirno adeegan faa'iidada weyn ee uu leeyahay waxa weeyaan dadka macaamiisha kharashka ay galayeen sida transportationkii waqtiga ay galayeen ama intay gudaha ka yimaadaan Jigjiga imanayeen ama wardheer intay ka yimaadaan Jigjiga imanayeen ama intay Jigjiga ka tagaan ayaa Addis Ababa tagayeen ayuu ka kaafinaya. Marka kharashkii waqtigiina sidoo kale ruuxu isagoo gurigiisa jooga ayuu dacwada doona iyo doodo doona oo Addis Ababa gudbisan ama isagoo gurigiisa guday ama wardheer ama fiiltu ama meel kale ba inoo jooga dhagax buur iyo qabdahar jooga ayuu Jigjiga u soo gudbisan doona. Taas waa qorshaha sanadka aan ku jirnay inaan haddii alla ka dhigo ugu yaraan dhowr meelood aan adeega noocan ka gudbino. intaa waxaan oo dheeray maxkamadda deegaanka Soomaalida waxaan ka asaasnay iyaduna adeega kale oo ah appointment display amaba adeega habka electroniga ee daabacaya ballamaha ay macaamiishu la leeyihiin. taas macnaheedu yahay dadka inoo shaqeynaya ama garsoorayaasha ama registrarada iyo macaamiisha inay isgaaraan ma ahaba hab display ahaan u sameynay maalin kasta ballamaha aan leenahay iyadoo electroniga ayaan ka soo daynay sida TV-ga oo kale ruuxu goobta qaabilaada martida ayuu imani halkaas oo ballantiisa ka eegan ballantiisa markuu arko jiloodka uu leeyahay halkaas ugu cadahay maalinka uu ballanta leeyahay jiloodka uu ballanta ku leeyahay taariikhda uu leeyahay halkaas ugu cadahay intoosan buu jiloodka u imanaya. marka taasina waxay dhimaysaa culayskii shaqaalaha saarmayay oo ama 10 shaqaale ama 10 macaamiil 20 macaamiil ay isugu imanayeen ana balantayda iyaga lahaayeen waayo ruuxu waa binaadam marka dadku ka bataan
ama inuu ilaba laga yaabaa ama fayl intuu raadinayo inuu waqti qaata laga yaabaa marka adeegaas isagana waa soo kordhinay insha Allah intan oo kaliya maaha bilaha soo socda adeegyo kale inuu casriya inaan maxkamadda dawladda deegaanka Soomaalida aan ku soo kordhino ayaan rajaynaynaa haddii alla ka dhigo anagoo la kaashanayna laamaha dawladda ee khasaaso heer federal iyo heer deegaanba